السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي كسود هذا القناة كأنا فضلا هدي أد نقعد صفتها سبسكرايب نودي هدا هرنا لجوجتنا وكما حسنتها لجوجتان كذا ما شاء الله هدا نقعد صفتها إن جنبنا الكفروس يا دون نقطها دعوة كواد رنتي أدي أيان مسؤولين يا أصحابتي نوصل بيرتي سود هذا يا إذن لا يقعون فرن ما شاء الله ما أنتم حكات لدونا إن شاء الله إن هويدا نوجسة كنينياش أي قادن كرتوه أما فيتامينيس كوناكسن هويدا نوجسة هدي أتهاي هوي نوجسة إن waxaa u baahan tahay fitamiino sidoo kale waxaa u baahan tahay nasiino hooyooyinka nuujiye inta badan waxay dareemaan daal fara badan waxay dareemaan maasha Allah inaynan hurdo fiican ku filneen markay waxay u soo kacaysaa ilmihii caawo dhan uu kugu soo kacaya marka hooyada waxay u baahan tahay supplementyaal ama fitamiino si oo jirkeeda iskugu dheelitirmo maasha Allah ilmahan uga helo caana fitamiin leh فيتامينادان استعماليسا hooyada nuujisa ilmahana waxay u leeyihiin muhiimad gaar ah waayo ilmaha wuxuu helayaa caano isku dheelitiran ayuu helayaa inta badan qudaarta waxyaabaha soo kale kalluunka aad bay ugu fiican tahay sidoo kale waxayna aad ugu wanaagsan tahay kaniiniyashan hooyada inay isticmaasho wuxuu siinayaa wax walba oo fitamiin oo jirkeeda u baahnaa marka wax daala ma dareemayso hadday caawa dhan usoo kacaysa ilmaha maasha Allah daal iyo stress iyo waxa soo dhan ma dareemayso marka haddii aad tahay hooyo nuujisa qudaarta fruitiska waxyaabaha soo kala dhan waa u baahan tahay sidoo kale kaniiniyashan aad ayuu kaaga saacideeyaa wuxuu ka saacideeyaa dhanka daalka oo ku daalimaysid maasha Allah wax walba waad qabsan kartaa haddii aad kaniiniyashan cunto inta badan hooyooyinka nuujiya aanan isticmaalin kaniiniyaal ama qudrada ama fruitiska aad daal ayaad dareemaysaa maantana waxaad dareemaysaa inaadan hurdo fiican hurdin laakiin maasha Allah kaniiniyashani hadda isticmaasho waa laba kaniini aad iyo aad ay wanaagsan yihiin meel kasta oo joogtiin waad ka heli kartaan kaniiniyasha waxa macquul wadamada inay ku kala duwan yihiin kaniiniyasha laakiin breastfeeding supplementi hadda tiraahdo waa lagu siinayaa kaniiniyashani marka waxa idin leeyahay hooyo isku dadaala inta badan si aadan u dareemin caajis si aadan uga habsaamin caruurtiina maasha Allah haddii aadan ku baraarugsan hooyooyinka hore way ku baraarugsan yihiin oo ayagaaba naga horeeya maasha Allah laakiin hooyooyinka cusub ayaan la hadlayaa kaniiniyashan aad ayuu idin saacidayaa maasha Allah xilliga dhashaba hore waad ka isticmaali kartaaba marka ma ku daaleysid ilmaha caano fiican ayuu ka helayaa oo fitamiinska dhan oo jirkaad u baahnaa haddaa hesho caano fiican ayaa soo saaraysa oo ilmaha ku filan ilmahadan wuxuu ka jaqayaa caano protein leh caano vitamins leh aad ayuuna kugu kubcayaa ilmahada inta aad goojo iyo waxyaabahaas ilmaha aad siin lahayd waxa kaaga wanaagsan si uu kugu kubco in adig cunto kaniiniyashan marka ayu vitamina ku jiro sidoo kale waxa ku jiro minerals ku jiro vitamin D ayaa ku jiro oo lafa xanuun iyo hooyada waxay dareemaysaa xilliga ay nuujinayso caajis lafa xanuunkaas iyo caajiskaas dhan wuu ka qaadayaa maasha Allah adkaartana yaani loobin insha Allah taala kaniiniyad kaliya wax ma taraan adkaartan yaa la halmaamin hooyooyinka cusub ayaana leeyahay hooyooyinka hore waxaa la macquul inay ayaga wax naga wanaagsan si yaqaanaan laakiin hooyooyinka cusub haddii aad hadda uur leedahay haddii aad hadda umushay haddii aad bishikooda camad ku jirto oo umusha kaniiniyashan soo iibso insha Allah waxaan rajeynayaa inuu aad ku saacidi doono maasha Allah soo dhawaada labada kaniini isku mid isticmaalaysiin hal mar mid hal xabo haddaa hesho waa isku mid laakiin waxay ku kala duwan yihiin magacyada bis bay ku kala duwan yihiin laakiin waa isku mid ma ahan inaad labada wada qaadanayso hal ka mid ayaad qaadanaysaa halkii aad hesho ayaad isticmaalaysaa wadanka aad joogto midkii laga helo ayaa isticmaalaysaa laakiin hadda waa laba xabo oo isku mid ah